Suldaan Cabdiraxmaan haddaad tihiin hoggaanka dhaqanka ee gobolada galbeedka dhawaan waxa aad la kulanteen guddiyo dhowr ah maxaad ka wada hadasheen guddiyadaas maxayse u socdeen halkan waxaa noogu yimiday laba qaybood oo isdaba socda qaybta golaha baarlamaanka Soomaaliland qaybta arrimaha gudaha oo laga warsanayay qaabka doorashada loo soo galayo loogu soo galay maadaama doorashadii golaha baarlamaanka uu dhow yahay taana waxa weeye runtii waxaan ku cadaynay waxaan saxaafadda hore ama rayidii hore wixii laga weydiiyay iyadoo beelaha galbeed hore ay uga shireen shirki gobeed taasoo lagu dhanaa haday ugaaska ahay abashid ahayd iyo haday dhaqan haydba oo ku yimaadeen 773 qof oo ergooyin laguna gooyay in ay saamiga ay ku leeyihiin dalka inay saxab u helaan haday u waayaan inay ka joogaan waxa weeye saamigaasi haday boqol noqoto waxa weeye boqolkiiba 40 haday noqoto sida hadda ay ku fadhido 28 waxa weeye waa 30 qof weeye arrintaas waa arrin cad weeye qolada arrimaha gudaha ee haddii aan la xugmayo baarlamaanka waanu cadaynay qolada ka dibadda nabada oo ku xigtay iyaduna ay weyn wada yimaadeen waanu cadaynay Suldaan Cabdiraxmaan arrintan cabashada saamiga waxa aad ka hadasheen muddaha tan laga joogo hal sano iyo dhowr bilood cidi dib idin ma soo eegin maantana waad ku celiseen marka maxaa idin talaa waxaan noo talaa oo cad bulshada yadan hore ugu sheegnay maanta aan hor joognaa in aan waxa weeye xadadeed aanan cid gaari aanay haysanaynin maskabka dalka aanay haysaneen baahiya ayaa naga go'aana waxa naga go'aana sida maanta lagu fadhiyo inay dadka aan matalayneen hoggaanka u nahay inay dib dambe uga qayb galaynin Somaliland haday golaha guurtay haday golaha baarlamaanka tahay go'aanka bulshadana waanu sheegnay waxa weeye cid kasta oo qosatan waanu sheegnay waxa weeyaan sida ay tahay waxa weeyaan ilaa la saxayo way ka maqnaanaya gadib soo ka maqnaanaya labada gole way warkaas war cad weeyaan